السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan waxaynu muuqaalkan kaga hadli doonaa mid kamid ah qisooyinkii ugu la yaabka badnaa ee xabsi lagaga baxsado qaabka uu baxsadkan u dhacay waa mid aan hore loo arag loona maqal baxsaduhu wuxuu baxsadka u adeegsaday helicopter baxsaduhu waa Ridwaan Faïd dambiilihii faralaga qaadka ahaa ee Faransiiska weerariyay si daawa muuqaalkan ilaa dhamaadka si aad uga bogtid qisada وكودي جولاي 2018 ساعدنا وسجالكي إلى 20 دقيقة صباحنيمو قوبتنينا وكونفورتا عاصمة فرانسيسكا إيه باريس waxaa halkan ku yaala mid kamid ah xabsiyada ugu ilaalada adag dalka Faransiiska xabsigan waxa lagu magacaabaa Rio boqolaal ilaalo ayaa dhex jooga oo gudaha ka wardiinaya wuxuu leeyahay gidaar dheer oo 6 mitir ah dusha gidaarka waxaa ku sii xiran biro iyo waayaro koronto albaabo waaweyn ayaa ku qufulan kadin kasta toogtayaasha meelaha fogfog wax ka soo toogta ee qoryaha diiradda leh wata ayaa fadhiya tower kasta xitaa gudaha jeelka waxaa ku dul xiran qalab ka hortagaya ama joojinaya weerarka cirka taasoo isku dayay in laga baxsado xabsigan ka dhigaysa mid aan suuragal ahayn waxaa kaligii ku xiran qolka 207 maxbuuska ku xaadira nambarka eber hal 89 oo lagu magacaabo Ridwaan Faïd waxaa ninkan loo ilaaliyaa si ka duwan sida maxaabiista kale maxaa yeelay waxa uu leeyahay taariikh dheer oo dambiilanimo ku dhawaad 30 bangi ayuu dhacay waxa uu geystay afduub 2010 waxa uu dilay saraakiil kamid ah booliska 5 sano ka hor waqtigan la soo xiray 2013 waxa uu ka baxsaday xabsi kale oo aan kan ahayn isagoo isticmaalaya bambooyin iyo hub marka la eegayo cilaaqaadka ka dhaxeeya Ridwaan iyo ilaalada xabsigani waa mid caadi ah Ridwaan waa nin furfuran kaftan badan oo xitaa culays iyo diiqad ku dareemin xabsiga lagamana dareemayo inuu xabsiga dhibsanayo laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay ilaalada shaki ayaa ku abuurmay sababtoo ah waxa soo booqanayay dad badan oo kala duwan waxa loo soo diray fariimo badan oo koodhar iyo nambaro aan la fahmayn ah xitaa waxa la arkay diyaaradaha yaryar ee daroonka oo xabsiga dul maraysa ilaaladu way shakiyeen waxaanay u maleeyeen inay wax jiraan saacadaha soo socda Ridwaan Faïd wuxuu sameyn doonaa ka baxsadkii xabsi laga baxsado ee ugu la yaabka badnaa taariikhda Faransiiska sidaynu u faahno qisadana waxa laga maarmaan ah inaynu ogaano cidda uu yahay ninkani Ridwaan Faïd waxa uu 1972 ku dhashay xaafadda danyarta ee magaalada Paris waxa soo koriyay labadiisa waalid oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Algeria waxay guri ku soo wada koreen 12 caruur ay walaalayihiin oo kale noloshuna aad ay ugu adkayd maadaama ay wadanka qaxooti ku ahaayeen aabihii wuxuu ka shaqayn jiray warshad hooyadiina waxay nadiifin jirtay hotel maciishaduna aad ayay ugu adkayd iyagoo sida xaaladda ugu adagtahay ayay waxay haddana isla ciyaalnimadoodiiba bilaabeen Ridwaan iyo walaalkii inay waxadaan waxay dukaanka ka soo xaday jireen nacnaca basulka iyo macmacaanka laakiin arrintan wuu la weynaaday waxaana isla bilowgii qaangaarnimadiisiiba tuugnimadu u noqotay shaqo isagii saaxiibadii waxay xadeen TV-yo raadiyo iyo xitaa kombiyuutaro waxay lacagta ay ka sameeyaan ku iibsan jireen dhar qaaliya waxaanay ku geli jireen shaleemooyinka Ridwaan dhalinyarinimadiisii waxa uu ilaa xad jeclaa aflaanta siba filmaanta Faransiiska ah ee dambiyada ah waxa kale oo aad uga heli jiray aflaanta Mareykanka ah ee gaangistaradu matalayaan waxaanu matali jiray qaabka iyo siday u socdaan aktarada filmaantu weligiina wuxuu ku riyoon jiray inuu noqdo iyagoo kale markii da'diisu ahayd 18 jir wuxuu geystay xatooyadii koowaad ee bangi waxa uu dhaca geystay isagoo sita hub oo ku hadlaya hadaladii aflaanta uu daawan jiray sida tusaale ahaan aamo ma hadli kartid waxaan ku farun samee kaliya waxaan doonayaa lacagta wixii inta ka dambeeyay oo dhan wuxuu sii waday dhaca iyo boobka farsamaysan wuxuu labisan jiray sida aktarada aflaanta uu jecel yahay oo kale wuxuu xidhan jiray wajiyo wuxuu la baxay magacyo aan la fahmayn oo koodhar ama sir ah waxaanu qaadan jiray hub 2010 dhacday oo bangi ku dhacayeen isaga iyo saaxiibadii ayaa halis gelisay sarkaal booliska oo lagu magacaabi jiray Aurelia Fouquet ayaa la dilay intii dhaca bangigu socday Ridwaan waxa lagu eedeeyay inuu hogaamiye ka ahaa falka waxaana loo taxaabay xabsiga inkastoo Ridwaan dambiile yahay haddana waxa uu caan iyo mid la jecel yahay ka dhex noqday xaafadaha ay degan yihiin dadka soo galootiga ka ah dalka Faransiiska iyo guud ahaan qaxootiga dalka ku nool waxa uu dadka qaar u noqday nin jabhada oo kale xitaa wuxuu qoray buug si aad looga iibsaday waxa uu ka soo muuqday telefishinada waxaanu ka hadlay dambiyada dambi baarista iyo mawaadiicda la xidhiidha marka uu TV-yada ka soo muuqanayo waxa uu ekaa nin degan oo caqli badan laakiin deganaanta uu matalayay waxaanu markasta hoos u watay hawlgaladiisa iyo qorshayaashiisa aynu ku soo laabana waqtigii uu xidhnaa oo ahayd 1 July 2018 Ridwaan waxa uu fadhiyaa qolka nambarka kontonaad ee dadka lagu soo booqdo waxa dushiisa sare ka muuqata astaan deganaansho laakiin waxa uu hoosta ugu diyaar garoobayaa baxsasho dhanka kale nin 65 sano jir ah oo macallin diyaaradeed ah oo lagu magacaabo Stephanie ayaa ku bixinaya 10 garoon yar oo diyaaradeed
kadib waxa goobtii uu casharka ku bixinayay soo galaya laba nin oo isdhalay oo lagu kala magacaabo Frederick iyo Julian waxay 500 euro oo kaasha siinayaan ninkii casharka bixinayay si uu uga kireeyo helicopter ka mid ah helicopteradii 1990kii soo baxay ee kalaasiga ahaa waxaanay ku oranayaan Stephanie adigu noo kaxee waxaanu doonaynaa inaan aragno saad u kaxaynaysa Stephanie uu shakinayaa marka hore waxaanu is oranayaa maxaa ka qaldan nimankan timaha feyga ah iyo magacyada sirta ah wata laakiin lacag waa lacag wuxuu ka qaadanayaa 500 euro ee kaashta ah waanu aqbalayaa iyagoo duulimaadkii dhexda uga jira waxay marsi kadisa u istaagayaan barxad banaan labada nin ayaa ka degaya helicoptertii waxaanay u sheegayaan duuliyihii inay soo kaajayaan laakiin waxay ku soo laabteen iyagoo hubsita oo laba nin oo kale oo qalabaysan la socdaan waxay Stephanie ugu hanjabayaan inay qoyskiisa oo imka ay garanayaan halkay ku sugan yihiin dhiman doonaan haddaan uu helicopterta ku geyn halkay doonayaan haddaynu ku soo laabano xabsigii ilaaladii xabsiga ayaa Ridwaan geeyay qolka booqashada iyagoo markan si adag u baaray maadaama ay martuu timi waxay kaliya ka heleen xanjo waxaana hubsadeen inaanu wax khatar sideen guud ahaan ilaalada xabsigu way feejigan yihiin waxaana feejignaanta galiyay waa qoraalada koodharka ah ee ku qoran qolka Ridwaan ee diyaaradii yaradeen duuliyaha lahayn ee dul martay xabsiga si lama filaana waxaa cirka qabsaday dhawaq ilaaladii xabsigu waxay dhawaqa moodeen qalabkan dhirta jarjarta waana iska dhaga tireen laakiin waa helicoptertii oo wado ninkii Stephanie oo lagu soo qasbay inuu helicopterta xabsiga geeyo helicopterta magaceedu waa Alote waa mid qadiimiya oo aad u yar waxaanay taasi ka caawisay inay ka dhex baxdo oo ka badbaado shabagii xabsiga ka ilaalinayay helicopterada waxaanay ku digtay goob banaana oo gaar ah oo lagu talagelin inay maxaabiistu galaan waxa helicoptertii ka soo booday laba nin oo afduuban oo jaakada xabadda celisa gashan waxay wataan qoryo AK-47 bambooyinka qiiqa iyo qalabka korontada ah ee biraha lagu gogooyo waxay isla markiiba dhulka ku sii daayeen bambooyinkii qiiqa ahaa ay siteen waxaana meeshii qabsaday qiiq cad waxaanu 40 ilbiriqsi gudahood ku kala jaray albaabkii adkaa ilaaladu xaaladan uu xabsigu galay waxba kama qaban karaan badankooduna ma haystaan hub kuwa hubka sita ee taawarada dhaadheer ilaalada kaga jirana waxa xabsigiiyo dhan ka qariyay qiiq oo waxba ma arkayaan gudaha xabsiga Ridwaan markuu maqlay dhawaqa mashiinka biraha jaraya wuxuu ogaaday in la gaaray waqtigii uu baxsan lahaa mid ka mid ah labadii nin ayaa jabiyay albaabkii ugu dambeeyay ee qolkii booqashada ee uu Ridwaan ku jiray wuxuu Ridwaan isla markiiba qolkii uga soo baxay banaanka isagoo qolkii uga soo tagay walaalkiisii ka weynaa ee la sheekaysanayay oo yaaban saacadu markay ahayd 12 iyo 28 daqiiqo oo subaxnimo waa 10 daqiiqo oo kaliya markay helicoptertu xabsiga timiye Ridwaan wuxuu ka soo baxay xabsigii waxaanu orad ku soo gaaray goobtay helicoptertu taagnayd wuxuu sheeda ka salaamay laba maxbuus oo saaxiib ahaayeen oo meel dhow ka arkayay kadib waxa uu koray helicoptertii markay sidaa u kacday ay hawada gashay waxa Ridwaan Faiid sacabka u tuntay maxaabiistii kale ee xabsiga ku jirtay oo dhan A French gangster who broke out of jail by hijacking a helicopter. A notorious gangster is on the run again. A criminal who is a big movie fan. He has broken out of prison twice now. And you can just about make out the helicopter flying off into the distance. Multiple armed men who hijacked a helicopter which picked up Ridwaan Faiid from within the prison grounds. Ridwaan Faiid baxsadkii uu helicopterta kaga baxsaday xabsiga waxay ka yaabisay adduunka waxaan magaciisii qabsaday warbaahinta adduunka oo dhan jaaliyadaha soo galootiga ee gudaha Faransiiskana waxa uu agtooda ka noqday legend aan la loodin karin iyo tusaale nololeed waxa uu gaaray heer ay aktarad Faransiis ah oo caan ahayd ay Twitterka ku soo qorto bravo Ridwaan laakiin dhanka kale booliska waxa uu intaaba agtooda ka ahaa dambiile weyn waanay raacayeen waxay qoortiisa dul dhigeen lacag waaliya iyagoo sheegay inuu yahay ninka ugu khatarta badan ay ciidamada Faransiisku imika raadinayaan 3 bilood kadib baxsadkiisii waxa laga soo qabtay isagoo jooga guri ku yaala magaaladii uu ku dhashay 2010kii Ridwaan waxa la soo taagay maxkamad markan laakiin amaanka ayaa aad loo ilaaliyay oo xitaa dawladda Faransiisku waxay diiday inay diyaarada dul marto goobta maxkamadda intii dooda kiiskiisu socotay waxa la baaray dhimirkiisa waxaanu dhakhtarka dhimirku sheegay inuu qabo xanuun maskaxiyana sidoo kale Ridwaan laftarkiisu wuxuu sheegay in ficiladiisa qaar ay kaga dhigtay waxaanu isku sifeeyay inuu yahay nin maskax ahaan buka dembiyadii uu geystay bangiyadii uu dhacay dadkii uu afduubtay iyo inuu ka mid ahaa tiimkii dilay sarkaalkii Aurelia Fauquet markay arrintaasi ku cadaatay waxa ka dhiidhiyay dad badan cawaaqibtii ka dhalatayna waxay ku keentay cirib xumo waxay maxkamadii ku xukuntay 39 sano oo xabsi gooniya taasoo la micno ah inaan la sii deyn doonin ilaa iyo sanadka 2060 markaas oo uu noqon doono 88 sano jir subscribe si aad u hesho muuqaalada dambe